shirkan jaraa'id oo maanta bahda warka fidisa u qabtay taliyaha ciidanka daraawiishta gobolka Shabeellaha Hoose gaashaanle sare Nuur Xayir Cali Gaas ayaa waxa uu ku faahfaahiyay howlgaladii ciidanka booliiska ay ka sameeyeen inta lagu guda jiray bisha barakeysan ee Ramadaan degmada Afgooye iyo Daafaheeda waxa uu taliyuhu sheegay in iminka xaaladda ammaan ee degmada Afgooye ay tahay mid la isku haleyn karo maantiis waaye waxa u sababa awalan horta Ilaahay baa noo fududeeyay midda labaad waa laga shaqeeyay in aysan wax dhibaato la aysan ka dhicin oo lagu guuleysto si kooxaha nabadiidka looga ilaaliyo dadka shacabka si ay soo dhibaateen oo aysan u hagardaamin sidaas sabab u ah idinkana waa dareemi kartaan meeshii amnigeedu uu sugan yahay iyo meeshii uu sugnayn waa la isku iman karaa meeshii amnigeedu sugan yahay waana isku arki karaa laakiin meel ammaan darra inaan cidna isku arkin idinka laftiin waa dareemi kartaan ma jiraan dad la soo qabtay oo iyagoo dhagarqabayaashii u shaqeynaya oo ka tirsan oo dadkii dhibaato inay la daba joogaan ay tahay waa la soo qabtay kuwa qaraxyo wataa la qabtay kuwa minooyinkii dhigayaa la qabtay waana la gudbiyey dowladda loo gudbiyey sidii garsoorka taas xukumaaya wixii ay dhibaataaday u soo baxday haddii soo bixin in miinadii wata in dhibaato u soo baxaysa taas sheekuban jireen Cabdiwali Cali online